maanta ay tahay 14 bishii sagaalaad 2025 waxaa shaqadeeda nagu soo booqday howlaha guud wasiirka maaliyadda iyo wasiirka howlaha guud hore u jooga iyo taliye ku-xigeenka booliiska saraakiisha traafikada saraakiisha wasaaradda howlaha guud dhammaan taliye ku-xigeenka qaybta bari dhammaan barnaamijkan wuxuu ahaa daafur oo ay wasiiradu garteen iskood inay u yimaadaan inay qaataan lesankii dareewalnimada taasoo ah waajib qof kastoo gaari wada oo muwaadin ah oo gaari ka xaynaya inuu haysto ogolaanshaha wadista gaadiidka arrintaasi mudday socotay dowladda Puntland qorshahaas mudday waday haddana waxaan codsanaynaa dhammaan dowladda wasiirada la mid ah wasiiradan inay iyaguna iska diiwaan geliyaan xarunta ugu dhow ee wasaaradda howlaha guud ee dowladda Puntland gobolka ay ka joogaan dhammaan shacabka waxaan faraynaa in barnaamijkan uu biloomay cid dambana aan laga yeeli doonin loona ogolaan doonin sharci darrena wadada ku madho aad baan wasiirada uga mahadcelinaya aad baan u soo dhaweynaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى